iyo isbeddelka cimilada ee Djibouti oo ay ka qayb galeen madax ka socotay gobolka Geeska Afrika iyo wufuud heer caalami ah ayaa la iskula meel dhigay tallaabooyin wada jir oo wax looga qabanayo saameynta taban ee isbeddelka cimiladu ku yeelatay wadamada gobolka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay shirkan ayaa soo bandhigay saameynta baaxadda leh ee isbeddelka cimiladu ku yeeshay Soomaaliya iyo qorshaha dawladda ee ku aadan ka hortagga xaalufinta iyo nabaad guurka deegaanka oo qayb ka qaata saameynta ka sii daraysa ee isbeddelka cimiladu ku yeelanayo dunida. madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya xilligan ay wajahayso marxalad adag kadib markii ay baaqdeen xilli roobaadyo isxigxigay taasi oo ay ka dhalatay abaar baahsan oo qarka u saaran in dalku uu galo xaalad macluul ah. Soomaaliya waxa ay ku jirtaa xaalad abaareed kadib markii 4 xilli roobaad oo isxigay ay baaqdeen sababo la xiriira isbeddelka cimilada. waxaan xooga saaraynaa wax ka qabashada xaalufinta deegaanka oo sal u ah mushkiladda dunida oo dhan saameysay ee isbeddelka cimilada inaga oo dhawaan daahfurnay hindisaha qaran ee Soomaaliya cagaar ah kaasi oo mudnaan gaar ah siinaya daryeelka dhirta dib u cagaarinta dalka iyo kobcinta wacyiga dadweynaha ee ilaalinta deegaanka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hoosta ka xariiqay in laga maarmaan tahay in wadamada gobolku ay yeeshaan wada shaqayn dhow oo wax looga qabanayo caqabadaha ka dhashay cimilada isbeddelaysa ee sababtay uumiga iyo kuleylka dunida ee sii kordhaya. dhanka kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa dalka Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa wada jir xariga uga jaray xarunta cilmi baarista deegaanka oo laga hirgeliyay dalka Djibouti. madaxweynaha Jamhuuriyadda oo safar shaqo ku jooga Djibouti ayaa kulan la yeelan doona dhigiisa dalkaas Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyaga oo si gaar ah uga arrinsan doona iskaashiga labada dawladood ee dhanka ammaanka gaar ahaan dagaalka dalka Soomaaliya